الرحمن الرحيم داودياشا qiimaha iyo qaayahadahu waa wadani TV dadka barnaamijyada ay si degdegay waxaan rabaa caawa inaan diiradda saaro sida ay ballan qaaday horeyba barnaamijkii ahaa dowladda dhabta ee Soomaaliya ku soo wajahan intaan taageerin waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo hal xabood oo inta badan Soomaalida ay ka dhigto waxaan u maleynayaa dowlado badan in la soo dhisay ilaa 1990 dagaalka sokeeye kadib ilaa haatan ay wax ka hirgelaysan jirin maxaa kalifay maxaa keenay ogsoonaada waxa keenay oo kalifay waxaana loo qaybsanayay inta badan iyadoo aad qabiil maskaxda idinka galay in qaran iyo qabiil u soo dhiseen waxa loo yaqaan inaad u qaybsataan labada jago oo ugu sareyso daaroodka iyo hawiyaha taasina ma aha qaran ama dowlad mid noqon karta sida banaanba waa falka fashila inta badan dowladaha waxaan idinku talagalay waxay tahay in dhammaantiinba aad ku sintaan inta laga soo dareysanayo dadweynaha ugu talagalay Soomaaliya inay dejiyaan tusaale haddii ay idinkaga soo qaado dowlad kasta oo la soo sameeyo wax hirgelaya ma aha midda hadda aad ku soo wajahannaha ku daadina kuwii hore halkii ay mareen ayay maraysan waa inay ummaddu iskugu tagtaa sideeda banaanba yaa danti inugu jirtaa oo daacadin oo ah caalamka hadda aan joogno wuu sii ilbaxay waxaa laga tegay qabiil iyo qabyaalad waxaa laga tegay boqortooyadiina way sii burburaysaa haddii qabiil awood lagu heli karo boqortooyooyinkii carabaha ay soo jireen 40 sano ay doonayeen inay gacanta u geliyaan wiilashoodii way u suurtageli weyday taasina waxa ay ku tusaysaa maanta inay awood kasta ka ballaaran tahay ama ka adag tahay bulshada oo kugu kacdo dadweynahana maanta waxay taagan yihiin caalamka ilbaxay ee teknolojiyadda la gaaray yaa dan inoogu jirta dalkana hogaamin karo ilaa heerka ay ka gaaraan hadda Soomaaliya 40% way u bisashahay 60 ayaa weli ku jira qabyaalad intii qabyaaladda iyo qurunka soo wadayna way ka dhamaatay nin kasta oo qabiil ku raadiyay xukun oo dagaal ku galay waa dadka ugu dhimasho badan ugu dhaawac badan uguna baaba badan taas ayaa xaqiiqo dhab ah haddii aad u baataan markii aan ka baxo haddii xagga kale ah idin fiiriyo taariikh yar ayaa idin xasuusinaya dalka maanta hore u maray ee Mareykanka ay xasuusin wuxuu u soo maray waa dalkii soo maray dagaal sokeeye oo u kharaara adduunka hataa si heerku gaarina weli midin gaarin wuxuu gaaray dadka Mareykanka in qofka bidaantiisa aad ka cararto oo noqoto in istoobataan aan saaxiib la dhigato xayawaanka qofkana ay ka dhaxayso bidaan arag inaad ku toogato haddii kala aad lagu toogayaa taasi oo keentay qof walba inuu hoodka galo oo duurka galo kana ilaaliyo dadka xayawaanka dugsado heerka ayuu gaaray haddaba qof walba waxa lagama qoostay John Smith ayuu ahaa ninkii nabadda dhaliyay wuxuu go'aan ku gaaray inuu nabad dhaliyo taas laakiinse way ku adkay waayo aragtida ayay tahay qof wax u sheegi karo ma isin jirin wuxuu isku saaray inuu dharca cad qaato maalmaha kadib ahna uu qaato gocad oo uu ku qoray ha idinina dhageyso nabad baan raadinaya isagoo tabeebla ka dhigtay oo saa u wato ayuu dhaqaaqay ninkii hore ee bidaanta ugu horeysay oo arkana kamaba u hadalsinina xabad ayuu qadafiyay ilaahna wuu ka badbaadiyay waxa ay ku dhacday shaatigiisa ka dhex baxday kama uusan quusanin tabeelihii ayuu haddana ku taagay ninkii wuu akhriyay qorigii ayuu ninkii ka daayay wuuna arkay ninka inuu wax kala wato uu ka dhageystay wuxuu yiri saaxiibkayga qaaliga oo barnaamijkan aad wado aad iyo aad u qiimo badan yahay laakiinse ma filahayo in laga yeelayo laakiin anigana waa kuwa dhimanaya ninkii qoriga ayuu dhigay wuuna raacay waxay heleen min kala haddana ay u tageen ilaa ay muddo ku heleen kooxo ah ultimana waxay keentay in dhammaan dadka dhan ay fikradiisa qaataan waxaana isku balansaday xarunta New York oo ahayd marka geed weyn oo ku yaalay oo qurac ahaa oo maanta ah muslimka ugu weyn ee madxafka la daawado caalamka waxaa la tiriyay qoryihii waxaa la geliyay dab waxaana markiiba lagu dhaqaaqay horumarka xagga wax soo saarka waxbarasho in la gaaro maantana wuxuu gaaray horumarkan haddaba isku soo wada duub ujeedada waxay tahay haddii aan bahda wadani TV.com kama quusanayno annagana waxaan nahay tabeelihii balaa uu gaaray John Smith oo annagana ugu yeerino ummaddu inay nabadda qaadato oo nabadda raacdo seenna aan ku quusanaynin oo ogaanayno xaqiiqada inay fahmayso dowladda boolo soo aasay oo madda bisha Agoosto waa tul keeni doono oo ah ra'iisul wasaaraha oo kale in la raadiyo isagana inta erabtiro
hadhay ee al-shabaab ah waxa dowladahana loo dhisayaa waxa weeye inay al-shabaab ku xoogaysaneen dalkana inta laga soo kalsheysanayo aysan kooxna awood ku yeelanin sidaa awgeed ayaa ah barnaamijka aan idin leeyahay agost 18 2012 ama 2012 ayaa dowladda rasmiga Soomaaliya ka dhacayso barnaamijkan oo tafatiran waxaa kala socon doontaan bahda wadani TV.com haddaan nahay jimcaha soo socdo waa mahadsantihiin anigoo barnaamijkan ugu magac daray dhabta diiteen lagaha adkaysato dhabta diidee waad is dhammaynaysaan waa barnaamijkan iyo kulanti wanaagsan jimcaha soo socda hadduu ilaahay yidhaahdo wassalaamu calaykum waraxmatullahi